heshiiskan wuxuu la xiriiraa iskaashi iyo wada shaqayn dhex marta laba hay-adood oo ah mid dawli ah hay-adda NIRA iyo mid gaar loo leeyahay oo ah bangiga caalamiga ah ABS wuxuuna ku saabsan yahay wada shaqayn bilaabata oo dhex marta lana xiriirta nidaamka hubinta aqoonsiga caalamiga ah ee casriga ah National Digital Identification System verification-ka la xiriira sidaad ogtihiin wax yar haddaan taariikhda dib idinkugu celiyo dowladda Soomaaliya waxay 2019kii go'aansatay in dalka dib loogu hirgeliyo nidaam midaysan oo aqoonsi oo dalka Soomaaliya uu yeesho 30 iyo dhowr sano kadib oo nidaamkii hore ee aqoonsiga ee Soomaaliya uu ku burburay uu ka mid noqday waxyaabihii ku burburay burburkii dowladnimada ee dalka dib u soo celintaas waxaa dowladda Soomaaliya siyaasad ay golaha wasiiradu ansixiyeen 2019kii lagu go'aamiyey in Soomaaliya ay dib u soo aasaasto nidaamkeeda aqoonsiga qaran oo midaysan oo dowladda dhexe ay maamusho noqonayana aqoonsi digital ah nidaam meeshan casriga ka keenna waa halkaas maadaama laga guuray nidaamkii manualka ahaa oo TESRA national la dhihi jiray oo warqadda isku soo laabmaysa oo qofka sawirkiisa iyo xogtiisa ku dhaganeed ah in nidaam ID laf ah wata nidaam database ku jira oo computerized ah oo digital ah oo la aqoonsigana si oo digitalna loo heli karo ama mobile iyo aqoonsi ah nidaamkaas waxaa ka dhashay siyaasaddaas la qaatay waxaa ka dhashay sharci oo 2023kii la ansixiyey oo sharciga diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka la yiraahdo sharcigaas ayaa wuxuu aasaasay hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka oo ka mas'uul noqonaysa inay diiwaan geliso dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliya sifada sharciga ku degan kadibna dadka ay diiwaan geliso siiso aqoonsi ay ku heli karaan adeegyada ay bixiyaan hay'adaha dawladda iyo adeegyada ay bixiyaan hay'adaha gaarka loo leeyahay ee laga maarmaanka uu aqoonsigu u yahay aqoonsigaas la bixiyo si looga fogaado in la falseeyo ama loo isticmaalo hab aan ahayn habkii loogu talagalay waxa ay hay'addu hirgelisay nidaam la yiraahdo nidaamka hubinta sax ahaanshaha aqoonsiga oo ah nidaam si online ah ay hay'addu u maamusho oo adeeg bixiyayaasha la tacaamulaya dadka aqoonsiga hay'addu bixisay sita ay ku aqoonsan karaan in qofka aqoonsiga wata uu yahay qofkii saxda ahaa aqoonsigii saxda ahaa qofka wata uu yahay qofkii loo jaray aqoonsigaas ama loo soo saaray nidaamkaas si uu marka hay'adaha adeegyada bixiya aqoonsigu shardiga u yahay ay u hirgeliyaan waxaa muhiim noqotay in ay wada shaqayn dhex marto hay'adda aqoonsiga soo saartay oo ah hay'adda NIRA iyo hay'adahaas heshiiskaasna maadaama hay'ad dawladeed ay shakhsi qaanuuni ah tahay hay'adaha kale oo ay heshiiska la gelaysaana yihiin shakhsiyad ay leeyihiin shakhsiyad qaanuuni ah waxaa loo baahday in xiriirka dhex maraya uu noqdo xiriir oo sharci ah oo lagu aasaaso nidaam sharciga waafaqsan taas ayaa keenta marka heshiiskan